بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed sharafta leh inaan u tilmaamo ama u sheego sida loo furto Gmail-ku ama ma garanaysaa Google Mail baa la yiraahdaa. Google baa iskale Gmail-ka ya waa Google baa u taala. wuxuu faa'iidooyin badan buu leeyahay. faa'iidooyinka badan uu leeyahay waxaa ka mid ah contactskaaga ama dadka kuugu jira inaad ku save garaysan karto ma garanaysaa email-kaaga. waxaa kale uu leeyahay waxa la yiraahdo Google Drive oo ah faylasha aad ku save garaysan karto. inkasta uu Hotmail-kuna leeyahay waxa la yiraahdo OneDrive, laakiin Google-ka ayaan ka jecelahay ama ma garanaysaa preferred ah oo lagu share garayn kara ama ma garanaysaa aad u diri kartaa linki faylashaada mid ka mid ah haddii aad fayl kuugu jiraan. ta kale oo labaad wuxuu leeyahay marka aad Google leedahay YouTube ayaad leedahay. marka faa'iidooyinka badan ayuu leeyahay. marka sida ugu fudud ee loo furto ayaan maanta idin tusayaa ee la socda hadalka idinku daalin maayo. okay waxaan furnay ma garanaysaa Google oo marka waxaan leeyahay google.com ayaan leeyahay. Google baan joognaa. marka waxaan odhanaynaa inaan email furno. sidee marka email loo furanaya? Gmail aan halkan iskaga qorayaa. Gmail sign up marka wuxuu ku leeyahay create your account-ka ayaan create garaynaa. marka email furayo leh halka magacayga ayay weydiinayaa. marka magacayga aan ku qorayaa. magacayga waa Saciid. halkan last name-kana waxaan rabaa ayaan ku qorayaa magarasa Abdi baan ku qorayaa. waxaa halkan ku qorayaa email-ka aan rabo in aan anigu yeesho @gmail.com. intan waa kuu sameeyay. marka intan ma baahanid. halkan waxaa u baahan tahay kaliya wixii aad doonaysay oo magacaaga ahaa. marka extension-kan isaga ku siiyay waxa la yiraahdaa extension-ka domain-ka oo waa googlemail.com weeye. marka waxaan odhanayaa waan sameysanaynaa maanta. waxaan leenahay waxaan sameynaa Saciid baan qorayaa. maxaan raacinayaa waxaan rabo Saciid 1 2 3 haddaan idhaahdo @gmail.com buu ii noqonayaa email-kayga dhowtol muxuu noqonayaa Saciid 1 2 3 @gmail.com. sidaasuu ii noqonayaa. passwordkii halkan waxaa rabtid ayaad ku qoraysaa ood password uga dhigaysaa. marka password fiican oo ma garanaysaa lagaa jabsan si yaroo dhib yar aan lagaaga jabsan ayaad lagaaga baahan yahay oo ugu yaraan 8 xaraf ama ka badan ah oo ay ku jiraan capital. xarafka ugu horeeya inuu capital yahay oo yani misalan xaraf weyn aad weynayso capital ka dhigto. waa inuu kale kuugu jiraa maad aragtay lambaro ay kuugu jiraan. symboliska calaamadaha yar la yiraahdina inay kuugu jiraan oo ah ama xidig ama hash ama maad aragtay dhibic wax kale maaragtay si passwordkaagu u wanaagsanaado. okay halka next step baa la yidhi moogtahay. waxaa la yidhi maaragtay stepka ku xigaan galayna oo nextiga ah. waxaa la leeyahay halkan ma taqaanaa already username-kaagan waa la qaatay. marka mid kale samayso. marka Saciid 1 2 3 4 baan ka dhigi. weli wuxuu leeyahay waa la qaatay. okay Saciid 5 baan ka dhigi. marka wuxuu leeyahay waa la qaatay. okay waan bedelayaa. waxaan odhanayaa Saciid 1880 marka wuxuu leeyahay Saciid 2158 ayaa available ah. suggestion buu i siiyey kana baan iska qaadanayaa moogta 2158. haddii aan idhaahdo xataa 19 Saciid. okay haddii aan idhaahdo Saciid 20 in la qaatay iyo in kala ogaanaynaa. waa la qaatay. okay 2021 isagana kulli waa la qaatay. saasaad u eegaysaa maarta lambar magac marmar waxaa jira Saciid 1950 baan odhanayaa. weli waa la qaatay 1951 muddo aynaan gaadhaynin. okay Saciid waxaan odhanayaa 20 magaranaysaa 61 baan isku odhanayaa kaasi inuu jiro. marka numberka ugu jira oo inta badan username-yada la qaatay iyo kuwan la qaadan halkan uu marka kaaga sheegay moogtay 2061. okay waxaan odhan marka waan ka boodaynaa. marka Saciidkan oo dhan baan ka bedelayaa. marka waxaan odhanayaa muxuu ahaa magac baan iska sheeganaya. marka tusaale ahaan
khatran oo dhanba magaca gabdheed baan ka dhigay khatran 1980 in la qaatay iyo in kale isagana waa la qaatay 81 waa la qaatay okay halkan ay hortiin aan ku sameynaya waxaan soo diyaariyay midna ma jiraan ya 1985 waa la qaatay marka wuxuu leeyahay sabdi magacaasa available ku abuu leeyahay moogta marka aniga sabdi iyo wuxuu available yahay ma raba laakiin magacadan babedela hadda waxaan odhanayaa raxmaan odhanayaa raxma 1 2 3 bal in la qaatay waa la qaatay 1 2 3 4 war waxaan maanta wuu wareeray ummadii oo dhan baa ku jabtay raxma 1984 waa la qaatay okay waxaan odhanay maanta raxma 944 halkaana waan fiirin waa la qaatay 9445 kaas ama garanaysaa jira raxma 9445 haddaan imika 1945 nidhaahno 1945 tolo maa la qaatay meel lama qaada markaa raxma 1945 @gmail okay next baan odhanayna halkan lambarkaagaad gelinaysaa marka lambarku waa optional ya recovery email haddaad email u baahato aad gelinaysaa yacni hadhow toor hadduu kaa xidhmo lambarkaaga marka wadankaad joogto halkan aad ka dooranaysaa calaamada baa kalik siinaysaa anigu ingiriiska ayaan joogaa ma garanaysaa halkaas baad ilaa iyo Soomaaliya meesha rabtid aad ka dooranaysaa wadamada oo dhan laakiin waa optional laakiin hadduu kaa xidhmo ayuu security kuugu soo dirayaa lambar halkan recovery emailka waxaa waaye lambarka aad rabtid inuu email kuugu yani masalan waa telefoonka bedelkiisa weeyaan hadduu kaa xidhmo email aad geliso oo ku weydiiyo aad geliso halkan dhalashadu ku weydiinayaa markaas akoonkaagu safe kuugu noqdo dhalashada waa u goyne waxaan haddaan wada goyno on sameyn annaga siniraan maxaa dhacay way nooga baahan yahay halkaa waa inaan iska buuxinaa on ilaa February 1 oo kale sanadkana 1967 tusaale ahaan genderkana aan meel ku sheegnaya gabadh buuba ahaa Soomaali magaca gabadha baan dooran annaga sinira waa tusaale oo aniga email ima noqonayo laakiin waa tusaale oo ya waxaan oo dhan ma garanaysaa waad ka boodi kartaa manualka ba iska dheh waayo wuxuu ku leeyahay aan ku soo laabano halkan express personalization use personalization setting that deliver tailored content and ads will remind you a couple of weeks to review your settings kana configure your personalization setting step by step and decide which are to get to content tan dooran marka macna basically waxa u dhaxay waxa waaye midna personalization setting ama marka adigu aad soo garanaysid iyo madaragtay tailored content marka waa Google baa laba option oo malaya bila macna ku siisay marka naga saataan ila mid buu inaga doonaya kanu ma iska qaadanayna wax weyn ma aha oo lagu daalo okay and keep until I delete manually choose whether you save the web or marka waxaan oo dhan wax wada cusub kuma jiri jirin do not save any activity marasa website iyo account-kayga nagastiyaan leenahay do not save anady okay nagasti anady personalization kana generic waxaan waxaan u baahanahay male waa wax uun isla dhaafinayaa waxa soo dhan muhiimadda inooma ah muhiimaddu waxa weeye inuu emailku inoo furmo I agree way kaba boodi karto optionada waa inaad markaa mid iska doorato marka saas uu inoogu furmay emailkii maaragta Said Cabdi soo dhawow ayuu ileeyahay marka okay marka halka aan joogno wax kale oo uga baahanahay ma jirto marka halkan aan tagaynaa halka dhowrka dhibcood arkaysid waxa odhanaynaa Gmail emailkeeni waa kan marka passwordkii aan sameynay iyo Gmailkeeni baan ku galaynaa halkan markan soo dhawow ayuu leeyahay and continue with smart features adoo smart features kuwa option kale oo magaranaysa marka uma baahni baan leenahay marka waa kan emailkeygii waa kan aan imka cusub aan furnay waa kan halkan wuxuu ku jira Said Cabdi maaragtido raxma
1945@gmail.com emailka cusba waa ka. okay, faa'iidooyinka kale markaa noole sidaasaan ku haysana. okay, iminka haddaan rabno in aan YouTube samaysano tusaale ahaan ama sheekada YouTube-ka maalin kale nooga dhigi. iminka laakiin waxa weeyaan oo sida loo samaystay waxaa nii sheegi doonaa. iminka laakiin waxa weeyaan emailkii inaad furatay uu kugu jiro. marka mobiladaadii baad halkan ka helaysaa ama import get Gmail for mobile. Gmailkaagii mobiladaadii ma garanaysaa in aad mobilada ku guran kartaa Gmailkaaga. halkana contactskaaga soo download garaysan. halkana profilekaaga ayaad bedeli kartaa iyo imageka oo sawir baa gelin kartaa adoo aad leedahay. halkan importantiska contactyadaadoo dhan baad soo download garayn kartaa wixii kugu jiray. marka halkan emailadii aan doonayo oo dhan yacni iyana halkan ku save garaysan karnaa inaan xasuusto aanan rabin moogta. halkan inboxkaaga ayaad bedelan kartaa ama sida emailada kugu soo dhacayaan. inboxkaaga defaultiga waa sidan. marka comfortable sidaas ama compact sidaas wada. marka waxan waa iska wada optional dheeraad. muhiimadeena waxay ahayd inaan tuso sida loo furto email maxaa la yiraahdaa Gmail oo faa'iidadiisa YouTube-kan aan ka hadli doono. contactyadana sida imika hadda aan soo sheegnay weey. halkan waxa waaye waa inboxkii. halkan waa senti waa wixii aad dirtay. hadhowto markaad wax dirto halkaas aad sentiga tagi aad ka arki doontaa. halkan waa draftiga waxyaalaha lagu save garaysta aad u baahan tahay imika waxba inaguma jiraan. muxuu ahaa meetinada iyo ma garanaysaa wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo ma garanaysaa Google feature badan maar walba waxay ku soo daraan feature moogta yani. marka meeting bal xitaa aad ku qabsan kartaa oo Google meeting oo free ah ma lacagna uu noqonayaa marka uu oo ma garanaysaa commercial u galo. marka haddaad sidan tiraadana hoos u socodina waa trashkii meeshii waxaad delete garaysay aad ka raadsanaysay. haddaad wax muhiim iska delete garaysay iyo ma garanaysaa spamkii oo waxa oo ma garanaysaa au Gmail-ku is yiraahdo ama Google Mail-ku is yiraahdo waa spam ama waa scam oo dadka lagu dhacaya halkuu geliyo weeyaan wuxuu systemku ka shakiyo because waa smart enough ama ma garanaysaa aqoon ku filan yani software-ka waxa loo sameeyay ama site-ka waxa loo sameeyay ama Google waxa leedahay artificial intelligence oo garta wuxuu inuu scam yahay dadka oo yahay wax beenbeena iyo inuu email-kaaga runtaada uu yahay. haddii email lagu soo diro oo inbox-ka ka weydo waxaad is odhanaysaa armala wuxuu galay ma garanaysaa spamka aad ka fiirsanay. halkan waa trashka oo wixii aad delete garaysay oo intaas wax weyn oo kale muhiim ma jiraan. I hope inuu si fiican ma garanaysaa aad fahamteen oo Gmail hadda furan kartaan. aad iyo aad ayaa idin salaamaya. khayr baan isku ognahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. iminkaan iskaga baxay. khayr baan isku ognahay. aad iyo aad ayaan idin salaama.